السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كوبعية سوفتوير alaabad ka barateen koorasyo kala duwan. Kooradkeennii noo socday loo yaqaanay QuickBook 2016 casharkeennii saddexaad baanu maranaa qaybta practicalka. Marka casharkeenu wuxuu ka hadlayaa how to record your inventory, sidaad u record garan lahayd alaabta ku taala businesskaaga. Marka casharkan wuxuu ka caawin doonaa sidaad u record garan lahayd alaabta businesskaaga taala, waxay doonaysaa noqoto, haday noqoto computer, haday alaabaha aad iibinayso noqoto, haday wax kale noqoto. waxaad kusoo dhawaantaan qaybtii practicalka ahayd. Marka uu programku kusoo baxo oo sida kuugu soo baxo, markaad rabtid inaad alaab diiwaan gelisid, steps baad qaadaysaa fudud. Marka ugu horeysa waxaad tagaysaa qaybta list, then waxaad kasii tagaysaa item list. Then item list marka kasii dhigtay khaanadina aan weynaysiiyo, waxaan meesha bannaan ma ku dhufanayaa right click, then waxaan dooranayaa new. khaanadaasaa ii soo baxaysaa. marka hadeer khaanadii markay soo baxday inventory baa iga maqan, halka inventory baa ka maqan. marka waxaan rabaa in inventory-ga kusoo darsado. marmar buu programku diidayaa, marna wuu ogolaa. hadda aniga iguma darsanaa, markaas qaabkay kusoo darsanaya. marka inventory part baa halka ka maqan. marka inventory part haddii kugu darsan yahay yadaad select garaysanaysaa. haddii kale kugu darsaneen waxaad ka soo daraysaa halkan dhow edit baa tegaysaa, preference baa tegaysaa. marka waxaan rabaa inaan kusoo darsano inventory part, then waxaad tegaysaa meesha ku qoran items inventory baad ku dhufanaysaa, then waxaad kusii dhufanaysaa company, then tigtaad saaraysaa halkaas. tigta ma saartay, marka wuxuu leeyahay waxaad xidhaa qeybahan soo xidhaya, isagaan soo xidhaya, inventory-gaan soo xidhaya. markaasuu ii yeelayaa, markaa soo xidho buu ii yeelayaa. then waxaan tegayaa edit-ka, preference-ga, then items-ka ii dooranaya company baan tegayaa, then tigtaan saarayaa. marka okay baan dhahayaa. marka hadeer inventory-ga markiiba waan ka helayaa. then steps-ka oo ba qaadaya list, item list baan tegayaa, then aan khaanadeeda weynaysto, right click baan siinayaa, new baan dhahayaa. marka hadeer wuxuu ii yeelay inventory part waa kaa kusoo daray. hadduu laakiin markay kugu darsanaan lahaa halkaas umaad saaraysa select, waxba isma dhibaysid. marka khaanada waxaad ka baahan tahay, halkan waxaad ku qoraysaa magacii itemka diiwaangelinaysa. kasoo qaad waxaan diiwaangelinayaa, waxaa ii yaala meheradeeda buskud baan ku qoray halkaa. buskud baan diiwaangashanayaa. then halkaa waxaad ku qoraysaa koska kugu joogo. kartoonka wuxuu igu joogaaba $10 oo kale. sales price maxaan siinayaa $10, $12 baan siinayaa kasoo qaad. then haddaan iibiyo shayga akoonkeebuu inkamku iga soo gelaya, halkaa waxaad doonaysaa sales ba dooran. then halkaa waxaad ku qoraysaa on hand, alaabta gacanta kugu taala. kasoo qaad business baan bilaabayaa, waxba iima yaalaanba, halkaasaan zero baa dhahayaa. haddii adba inta kuu taala kasoo qaad 10 kartuun baa yaalaa, halkaasaan ku qoranayaa. then hadeer wixii laga baahnaa waan diiwaan geliyey, okay uma daabanaya. then wii diiwaan gashan yahay. wakaa inventory part sales, wakaa 10 kartuun baa yaala, midkiiba uu 20 barayskiisu yahay. then iska soo xiranaya. waxaan kasoo eeganayaa reportka, qaybtii reportka the company and financial baan tegayaa, report company and financial. then waxaan tegayaa balance sheet-kaygii baan tegayaa si aan iga soo eegto reportska. marka wakaa inventory-ga wakaa igu soo kordhay 10 baa igu yaala. 10 kartuun min $10 koskiisu ah baa halkan yaala. marka $100 halkaas ka keenay 10 kartuun min $10, labadii 10 isku dhigto ka 100 soo baxday. marka qaabkaas loo diiwaan geliyaa inventory-ga ama alaabta ku taala. marka haddii dhowr alaabad ku taalo steps-ku mad raacaysaa, mid walba okay baad siinaysaa. then casharkeennii intaasuu nagu soo gabagaboobay. asxaabtan waxaan leeyahay practice-ka sameeya, wixii su-aalana commentiga hoose kusoo qora. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi